shirka muqdisho madib ayaa loo furi karaa heshiiskii 17 Sebtembar aragtiyaha dowlad goboleedyada beesha caalamka midowga musharaxiinta farmaajo iyo rooble maxaa laga weelayn doonaa sanadka 2022 Soomaaliya ayuu ugu bilowday isqabsi xagga siyaasadda ah ku wajahan doorashooyinka taasi waxa ay muujinaysaa in aysan weli dhinacyadu si cad u aqoonin xilliga ay soo dhamaanayso sidaas oo kale hay'adaha dawladda oo muddo dhaaf noqday ayaa weli xafiisyada sii jooga waxa kaliya ee ay dhinacyadu isku raacsan yihiin waa heshiiskii la gaaray 17 Sebtembar sanadkii 2020 baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay meel mariyeen intii aanu muranka gelin gudashada waajibaadkoodii sharci ee loo doortay heshiiska doorasho 17 Sebtembar waxa lagu xalaaleeyay doorasho dadban baarlamaanka oo la horgeeyana waxa ay raaciyaan lifaaqa xil gudashada hay'adaha dawladda oo ay ka dhigeen in baarlamaanka hadda jira uu kala wareegi kala baarlamaan kale mas'uuliyadda oo la dhaariyay qaatayna kaararka aqoonsiga taas waxa looga durkay fraaqa hay'adaha dawladda sida ay ku doodeen gudoonkii baarlamaanka ee waqtigaasi kulanka hadda ee Muqdisho bilowga bishan Janaayo madaxda dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka wada hadlaya mushkiladaha iyo khilaafka hareeyay doorashooyinka ka socda maamul goboleedyada waxa soo baxaya tuhuma la xiriira in dowlad goboleedyada qaarkood ay doonayaan in wax laga bedelo heshiiskii 17 Sebtembar Jubbaland ayaa horkacaysa qorshaha wax ka bedelka heshiiskaas waxa ay doonaysaa in labada goobood ee doorashada lagu soo koobo hal magaalo ergada loo celiyo 51 xubnood kuraasta 16 ah ee leegeeyay Garbahareyna la keena Kismaayo si tani u ahaato kaarka ugu dambeeya ee uu isticmaalayo hogaamiyaha Jubbaland ayuu dib u dhigay 4 qodob oo ra'iisul wasaare Rooble sanadkii hore bartamihiisii u gudbiyay Axmed Madoobe oo ku wajahna xaaladda Garbaharey si doorasho loogu qabto dhisidda maamulka magaaladaas ayaa ka mid ahaa kaasoo ilaa iyo hadda xubnihii kala duwanaa ee loo gudbiyay dhinaca Axmed Madoobe aysan noqon kuwa la magacaabay damaca dani qorqor lafta Garaaniga Cali Guudlaawe dowlad goboleedyada kale qaarkood ma diidana qorshaha Jubbaland balse waxa ay qabaan cabsida ah inaan la dhiiran karin waxaana Axmed malafkiisa taageero uu uga heli karaa Siciidani oo isna dhankiisa ka cararaya imraacyadii ugu dambeeyay wax ka bedel lagu sameeyo ayadoo ra'iisul wasaaruhu doonayo in si isbedel xooggan loo sameeyo dhammaan habraacyadii kala duwanaa ee uu saxiixooda wax ka lahaa Agoosto sanadkii aanu macsalaameynay midowga musharaxiinta ifafaalaha in wax laga bedelo heshiiskii 17 Sebtembar iyo habraacyadii ka dambeeyay waxa qaba qayb kale oo banaanjo ka ah shirka oo ah midowga musharaxiinta waxa ay doonayaan in la helo xal kale oo xataa soo dhaweyn kara marxaladaha qaybtood laakiin taasi waxay abuuri doontaa horgumooyin kale oo siyaasadeed gudahoodana iskuma waafaqsana farmaajo iyo aragtida cusub dhinaca Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in hadda wax laga bedelo heshiiskii 17 Sebtembar waxa ay uga dhigan tahay inay banaanka u soo baxeen eeda ay horay dhankiisa ugu jeediyeen wasiirka koobaad oo ah inuusan ka shaqeynin hirgelinta heshiiskii doorashada bedelkeeda uu doonayo in muddada la dheereeyo khilaafyaduna ay sii socdaan xujo kale oo burinta heshiiskan hortaagan waa inuu noqday mid ay meel mariyeen baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya in xilligan laga gudbaana aysan sahal ahayn beesha caalamka wakiilada caalamiga inta badan war-saxaafadeedyada ay soo saaraan hadallada ay ku hadal qabsadaan iyo waxa ay dalbadaanba in la fuliyo waa heshiiskii 17 Sebtembar iyo dhammaan is-afgaradyadii ka sokeeyay oo uu ka mid yahay is-afgaradkii heshiis ee la gaaray bishii May ee sanadkii aynu ka soo gudubnay taas oo diiradda saaraya qabsoomidda doorashooyin dhammaan dhinacyadu ay isku raacsan yihiin xujada ah in wax laga bedelo heshiiskii 17 Sebtembar gaar ahaan hoos u dhigidda ergada iyo soo koobidda goobta doorashaduba waxa ay ka dhignaan doontaa mala awaal siyaasadeed oo dowlad goboleedyada weli qaar ay maanka ku hayaan ha yeeshee sida ay ku suurtagali karto waa arrin adag oo aan sahal ahayn ra'iisul wasaare Rooble haddii uu dowlad goboleedyada la aqbalo arrintaasi damaca
waxa ay ka dhignaan doontaa in mar kale mushkiladaha siyaasadeed qoorta isaga ay u geli doonaan isla markaana wakiilada caalamiga ah oo hadda taageero xooggan u muujiyey ay dhabarka u jeedin karaan madarasada Darul Istiqama oo uga barateen barashada Quraanka Kariimka ah kana qalin jabisay dafcadii 10aad waxay hadda idin soo kordhisay online academy oo ah qaab casri ah oo uga baran karto Quraanka adigoo jooga gurigaaga meel kasto aad joogto waad noqon kartaa ardayda Darul Istiqama wixii faahfaahintaas dheeriya kala xiriir lambarada iyo gmailada shaashada ku qoran Darul Istiqama daarta cilmiga